Puntland maanta daya kaabayaasha daya dowladnimo lahayd dariiqyada dhismiyo dekedaha baldaya dariiqyada dhismiyo dekedaha baldaya garoomada baldaya dhismay bilicda daya garoomada baldaya dhismay bilicda daya Puntland maanta 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 daya kaabayaasha daya dowladnimo lahayd dariiqyada dhismiyo dekedaha baldaya dariiqyada dhismiyo dekedaha baldaya garoomada baldaya dhismay bilicda daya garoomada baldaya dhismay bilicda daya Puntland maanta daya Puntland maanta daya Puntland maanta daya Puntland maanta daya Puntland deqila wadaya xifo geeska u damayo dafa qarin kare hambariyo ducay hooya 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 dunidu tiri dama qarin kare hambaliyo ducay hooya 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 dunidu tiri Puntland deqila wadaya xifo geeska u damayo dama qarin kare hambariyo ducay hooya 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 dunidu tiri dama qarin kare hambaliyo ducay hooya 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 dunidu tiri dama qarin kare hambariyo ducay hooya 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 dunidu tiri aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa waxa weeye sida aad had iyo jeer ugu heelan tihiin soo gudbinta horumarka waxaan u malaynayaa maanta ay taariikhdu tahay 13 bishii 8 dhismaha tekadu marxalad aad u wanaagsan ayuu marahayaa runtii 24 January sida la wada ogsoon yahay ayuu ahaa dhagax dhigii tekada intii ka dambeysay waxa socday processing dhismaha alxamdulillah rabbil alamin waqti xagaay ayaa la soo galay oo runtii ay dabaylo fara badan dhacayeen sanadka oo ka gadisnayd sanooyinka horeeto hase ahaatee si walba ay ahaataba shaqadu waxay ahayd mataqaanaa miis daba taala marxaladii wajiga koowaad ee tekaduna runtii wuxuu ku taariikhaysnaa in la xarig jaro December sanadkan 2023 150 mitir ayuu ahaa run ahaantii shaqadaasi sida aad soo aragteen waxaa ka qabsoomay waxaa la oran karaa 80% shaqadii dhismaha tekadu way soo gabagabowday hadda waxa socda shubkii piping-ka ahaa oo 205 tiir ah oo tekada bartigeeda waxa weeye 21 mitirna dhiibka badda hoosteeda ah waxa weeye concrete laga soo dhigo la soo shubay waxaan rajaynayaa insha Allah in ay soo dhamaato gabagabada shaqadaasi labada bilood hadda nagu soo wajahan waxaan rajaynayaa insha Allah muddadii ku taariikhaysnayd xarig jarka tekadu inay ka soo hormari doonto waa dareemi kartaan oo mar walba oo shaqo socoto waxna waxay u qabsoomayaan ku talagalkii waxna waxa ku imanaya dib u dhac marka aad baan runtii si maaragtay hawlkarnimo ah aan kaga mahad celinayo shirkadda dhismaha gacanta ku haysa Marmarin runtii shirkadda DP World oo runtii xil weyn iska saaray inaan shaqadii ballanku sidoo ahaa iyo timeline-kii lagu ballamay inay tekadu ku soo gabagabowdo
sidii ku talagalku ahaa waxa weeye iyo si ka wanaagsanba waxa weeye uga howlgalay annagana ka wasaarad ahaan runtii de waxaanu had iyo jeer timeline-kii aanu lahayn aanu tigaraynay shaqo walba oo qabsoonta iyo sida ay maaragtay waqtigeedii ugu soo gabagabowday marka ummadda reer Puntland maadaama ay dekedu tahay kaabayaasha dhaqaalaha ugu waaweyn runtii fiiro gaarana ay u leeyihiin dadku waxa xil weyn naga saaran yahay inaanu had iyo jeer waxa weeye shaqada siday u qabsoomayso iyo heerarka ay marayso aanu had iyo jeer waartay aanu maadaama loo igmaday mas'uuliyadda shaqada aanu had iyo jeer aanu mataqaanaay si maaragtay wax walba aanu ka fiirsi leh inaanu u dul istaagno aad baan ugu faraxsanahay runtii in dekeda maalgashigeedu company international uu maalgashaday waa horumar Puntland u soo kordhay waa runtii wax lagu naaloon karo maadaama waxa weeye nidaamka axsaabta iyo dimuqraadiyadda uu taabagalkiisa iyo dhismihii iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarkii dalkana ay isku waqti ku soo beegmeenna runtii faa'iido badan bay bulshada ugu jirtaa oo runtii bulshada hadda wax baranaysa waxay leedahay riyooyinkoodana waxa kamid ah dalkooda oo dhisma kaabayaasha dhaqaalaha oo loo dhiso airportada iyo tikadaha iyo jidadka iyo magaalooyinka adeega guud inay adeeg guud oo ku filan bulshadu inay helaan dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashadana runtii xukuumadani uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani xil weyn bay iska saartay marka waxaan rajaynayaa waa wax lagu faano way ummadda reer Puntland maanta marxaladda ay marayso waxa weeye horumarka kaabayaasha dhaqaaluhu waa wax lagu faani karo way aad baan ugu faraxsanahay runtii in aanu xilliga kan aanu mas'uuliyaddii naloo igmaday ay ku soo beeganto xilli dalku horumarkaasi maartay baaxadda leh uu ku talaabsaday runtii magaalada Boosaaso waa magaalo cimiladeedu kulushahay waxa ka socda projectyo fara badan oo ay ka mid tahay korontadii oo ay ka mid tahay biyihii runtii baahiyaha dadka bulshada ku dhaqan deegaankuna waa waxyaabaha ay maynka u ahay aadka ugu taameeyeen marka laga reebo kaabayaasha dhaqaalaha oo tikada iyo airportka oo isagana hadda dhow 800 mitir iyo 300 safety lagu daray tikadana runtii way isdaba joogtaa oo projectigan phase 1 ka ah oo 150 ka ah waxa ku lamaan 300 mitir oo dhanka xeebta ah waxaan rajaynaynaa insha Allah sectionka kalluumaysigana in dekad Portugal ah oo mataqaanaa kalluunku si available oo maartay uguna soo xiran karo loogana dejin karo in loo helo proposalkaasna nagama maqna oo waa mid aanu proposalkaas diyaarintiisa hadda gacanta lagu hayo insha Allah dhinacay noqotaba waxa loo select garan doonaa boos hawsha ku haboon oo lagu maartay si temporary hore looga fuliyo maadaama sanadka cusub 2024 bilowgiisa aan rajaynayno projectiga phase 2 inuu hore ka bilaabmo marka inta waxa si dheer sida aad aragtaan tikadu dhismihiina uu socdaa rarkii iyo dejintina waxa ku kordhay mooyee waxba iska maysan dhimin maadaama weelka la haysto weel yar aha tikaduna ay tahay tikad runtii supply garaysa dhammaan waxa weeye geeska Afrika oo dhan halkan waxa ka soo degaa dhan Ethiopia haday noqoto iyo dhan Soomaaliya haday noqoto koonfurteeda way tagaan marka customerka inta la eg waa inay helaan in tikadii ay availability-geedii iyo degdegeedii iyo shaqada sida ay maartay had iyo jeer mataqaanay adeega tikadu uu ahaa 100% in maartay ay ka kororto mooyee waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa port staff-ka oo ay waxa weeye kamid yihiin waxa weeye customs waxa weeye port staff oo ay kamid yihiin security-ga oo mataqaanay iyaguna xil weyn iska saara oo tikada aad aragtay shaqada ka socoto wali wax crime ah zero crime ay tahay wax lagu xado iyo faldambiyeed ka dhaca nooc doonaba ha ahaade marka runtii aad baan ugu faraxsanahay shuruucda iyo mataqaanay horumarka iyo qaab hawleedka waxa weeye dekadu waa mid runtii fadhiyo weeye waa mid standard ah waa mid aan rajaynayno cid walba oo mas'uuliyadda meesha aan u geyno nooga dameysa inay halka ka anbaqaado aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.